xigmadna waxa waaye intaad ka faa'iideen idinku filan dadka ruux walba ruuxii ka aftahansan adika dhagihiina waad ku maqashaan indhihiina waa ku aragtaan marka wareeggii labaad dhibca ahaan waxaa batay dhanka coinska marka loo eego shiina culay oo keenay halkan planetaab gudbo den markaasaan natiijada sheegaynaa wareeggaani waxaa badiyey shiina oo keenay wax 100,000 ka badan oo coins ah iyo daayir calasow oo helay 51.7 marka daayir adigana waa ku qanacsan tahay shiinana waa ku qanacsan yahay natiijadana nin walba indhihiisu ku arkaa marka waa wareeggii noogu dambeeyey shiinow hal su'aalna way ku hor taallaa 5 daqiiqo iyo 7 daqiiqana waxaad ku heshiisaan labadiina ayaan time ahaan idin siinaa هاي شيء ما يقع قادنا ما شن بارتا بس 5 دقيقة baan wadayna هاي 5 دقيقة صار 5 دقيقة waa gogosanayna si aan hadalkii u gogosano oo u kala okay 5 daqiiqo oo ay hal su'aalna ku hor taal su'aasha hor taala adiga okay odayga hadalkiisii waa ka daba tegayaa horta odaygu wuxuu sheegay wuxuu yiri hadaaye gobolada maxaa ku yiraahdaaye Soomaali galbeed iyo NFD gumaysi baa haysta oo maaragtay ma rabo inaan kuwa ka hadlo haddana taariikhdii wuxuu ka bilaabay dawladdii daakhiliga ahayd ee maaragtay gumaysiga hoos joogtay ee Cabdullaahi Ciise joogay xilligaas Soomaali xornimo maaragtay ma aysan haysan calan baa Hargeysa laga taagay buu yiri daahir wuxuu iloosan yahay calanka ninkii sameeyay geedba geed baa ka weyn inuu ahaa Maxamed Cawaale Liibaan marka calanka halkaa laga taagay calan cigaar toshay iyo mid adigu toltay toonna ma ahayn Soomaali oo dhan loo talay calankeeni weeye kaama xigno laakiin Maxamed Cawaale Liibaan baa helay dadkii ka soo qaaday Ingiriiska xornimada gobolada waqooyi waxay ahaayeen 5 la diray bay ahaayeen oo beelaha halkaa degan ka wada kooban isaaq 2 qof ugu jiray harti 2 ugu jiray samaroona 1 qof ugu jiray garaad cali baa kamid ahaa marka garaad cali uu leeyahay oo dhubaanta ahaa aynu ahaanu 5 bilood dawlad oo uu maxaad Ibraahim Cigaal lahaa laaya garaad xornimadaana waxa keenay cid kale ma ahayne daarood baa ahayd Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa u diray isaga Ingiriis wadanka ka kiciyay isaga diyaarada lagu duqeynayay isaga telefoon fadhiyay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Allah u naxariisto beesha dhaxa afka ku balaarisay Ingiriiska la shaqeynayay wax iska caday iska ahayd waxa weeye waxa sheegtay generaalkii ugu horeeyay oo Daawud baa lahaa ha ilaawin Maxamed Abshir Haabaan Allah u naxariisto taliyay ugu horeysay ciidanka booliska daahir ha ilaawin waxa sheegtay maxaan ku yiraahdaayay Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariisto oo 11 sano wadanka haystay wadanka xukunka waa laga tuuray sax si oo inqilaabana waa ku qabsaday Afrikaanka waa ka dhacdaa nin xukun military ku qabsaday in dadku kacaan cidii ku kacday adigu waa u shaqeynaysay waa ku cashuurayay kama xumayn niman daarood ay ahaayeen waxaan jeclaan lahaa daarood dhixdii inaadan igala hadlin daarood baa saas yeelay inaadan igala hadlin oo waxa kugu filan de habar gidir iyo abgaal inta islaayeen haddaan maanta ka sheekayno wax laga hadli kara ma waa kuwa hadda hirshabelle ku heshiin la waaye marka Siyaad Barre Caydiid baa ku faantay Caydiid hadduu marxuum weeye anagu dadka maartay geeriyooday ma aflagaadeeno waxna ma niraahno laakiin waxaan ku xasuusinayaa hadduu haliyay ahaa isagoo isbaara taagan in adeerkiisa dilay wuxuu ahaa adaa inta la taagan waxa dilay Cabdi Qaydiid baa dilay dadka qaar Ismaaciil Caati dhahan kulay habar gidi kama tagsanayn filo Soomaaliya lagu dilay isbaaru taagnaa markii halkaas isbaarada anaa ka qaadanaya ahayd Siyaad Barre nin wadanka 12 sano joogay buu ahaa talinayay madax ahaa waa tagay xukunka laga tuuray waa caali awal xoog buu ku yimi sanduuq kuma iman xoog baan lagu kaxay ma jirteen baan bilaabay oo SDF ku ahaa SNM ma bilaabin USC-na maxaa ku yiraahdaayay ma bilaabin marka waxa tiri dawladdu waa riday haddaan nin caaqibada tahay waxa weeye xukunka ku heshiin lahaydeen Rwanda ka dhacday Hutu iyo Tutsi baa ku diray Tutsi baa adkaaday waka Bob Kagame sharaf buu leeyahay wadankii waa dhisay hadduu Caydiid maalintii qaadan lahaa hawiye markay tashadeen inay wadanka maamulaan saasa dantu igu jiri lahayd anna dantu kugu jirtay maantana waa ku faraxsanaan lahayn laakiin anna waa soo qaxay adna waa iga soo daba qaxday waa ku heshiin weyda cali garle Caydiidna garle baa ka dameysiisay dawladnimadii
siyaad barre wuxuu ka tegey waa arki doontaa waraysiga nin habar gidira oo wasiirka maaliyadda ugu dambeeyey ahaa uu bixinayo siyaad barre kaali markuu marayo raadiya muqdisho markuu ag marayo raadiyo muqdisho wuxuu u rogay foosta shilaala si uu raadiyo usii shaqeeyo xabad kombiyuutara ma qaadan adigu waddankii markaa soo gashay oo jabhadda ah kusoo gashay maxaa waddankii ka samaysay kombiyuutaradii baa qaadatay gogolaha ku jirtaa meel walbay taallaa filadii adoo diiranaya oo ku heshiin la haddaa maalintii hoggaanka waddanka ku heshiin lahayd maanta anna dambe ii ahaan lahayd anna dambe ku ahaan lahayd waa meeshaan ku leeyahay isimo odayaal dhaqan oo idinkala dhex gala oo wax idinkala yidhaahda male waa sababta ah hal maamul goboleed ugu heshiin adihiin laakiin daaroodku uu u leeyahay dad ku heshiiya haddaad adigu cid sheeganayso leeyahay axmed gureba aniga iga dhashay aniga waa nin cabdaraya waa sheegan kartaa laakiin qof walba cid yahay taariikhda maarad ku qoran tahay xalakan tiktok markaa soo eegno sj baa hadda wax soo diraysa sj intay meesha ka soo dirto hawiyo dhan haddii laisku daro ma diro waxaan kuu tirin karaa 30 ilaa 100 qof oo daaroodo ilaa maalintii la furay wax diraayay maaha inaan idinka lacag badan nahay laakiin qalbiga xaggiisa ayaan ka qanisannahay adiga hal qof hadduu soo galo oo laba game ciyaaro game saddexaad ma ciyaaro marka ama credit card soo qaato ama hagbad soo galo ama deen soo galo iyagu intaasaasi u wadaan xagee ka keenayaan ina isweydiisaan mudan waxa waa dad qulubta qani ka away dad Soomaaliyeed kula mid weeye laakiin qulubta qani ka yihiin hadda gifti baan ka badanaya hadalka ku bilowday meeshaan marayo iyo meeshaan joogto ina isagtaa fiicnaan lahayd laba caasimadood baa sheegtay war Soomaali 18 gobol baa 10 aan diganahay 8 Soomaalida kala digan 10 ana digan yaa daahir ina taa ogaatid baa fiican Soomaali galbeed ogaaneen yaa la sheekhaana wax ku lahay waa digan yihiin hawiyaha hal meelaha waa jooga gobol kasto Soomaali waa joogtaa waa ka baxay shiinow timekaadii waa dhammaaday waqtigaadii waa baxay 5 daqiiqo si sharaf leh u qaadatay adigoo ah si wanaagsan u hadlay marka waxaan rabaa in aan natiijadii saddexaad soo gudbiyo rocketkaana ugu dambeeya natiijadii ugu dambeysay oo wareeggii saddexaad waxaa mar saddexaad adkaaday saan u jeedo shiina culay oo haysta 274 iyo daayir calaso oo haysta 192 shiinow intaanan dooda wareeggii saddexaad usii gudbin daayir su'aal uu kaaga tegey adigana waxaan jeclaan lahaa si daayir uu meega u qabsado hal su'aal tale iyo tusaale waxaad haysid inaad ugu tagtid si uu mikrofonka u qabsado su'aashu iga tagay igu celi dadkayga waxaan ka codsanayaa maqaaxida kiradayda in la iga bixiyo odayga qurux ku dhigla waa isoo eegaya odayga hal eego su'aashu weydiiyey haddii adeed tahay su'aalaha inaad xasuusto igu celi maya dhib male taa waaba ka gudubnay maxaad su'aal ugu tagaysaa daayir si uu meega u qabsado mise waa fasaxaysaa may ha hadlo maxaa su'aal weydiinaya ha hadlo okay daayir maqal ma jira waa jira maqal waxa weeye horta natiijada kooniska waxaa lagu kala bixi doonaa markay ciyaarta dhammaato doodeen ay dhammaatay soo gabagabaysay waxaa la eegi doonaa yaa sarreeya sababtoo ah waxaa la yidhi daaro daadaansi ma daayo haweenadan jibis ma daayo marka waa ognaha baalo xooftada hore markasta way ku horreeyaan ayaga laakiin waxa ay ku dhammaataa guuldarro baalo xooftadooda shiina su'aal baan weydiiyey markii ugu dambaysay inuu ka jawaabana waa kari waayey waxaan weydiiyey war waxaad ii sheegtaa walaalkay shiinow daaroodka aad sheegaysa aad u hadlayso magaalo ay 1 milyan qof ku nooshahay may jirtaa oo daarood leeyihiin tusaale waxa u soo qaatay aniga muqdisho degaa hawiyaan ahay 4 milyan ku nool waa caasimad iyo kaliya tusaale yar waa soo qaatay hadday jirto daarood heesta magaalo noocaas waa ii sheegi kartaa hadday jirto population magaalo ah ay leeyihiin oo challenge kale ka ii sheegi kartaa isaaq waa la yaqaanaa magaalada Hargeysa waxa qalqa ku nool hawina waa la yaqaanaa adigu magaalada allada ii sheegto waa rabaa daahiro waa ana iskale aad waa ka jawaab doontaa daqiiqadaha u jawaab doontaa daqiiqadihii kama soo hadli kartid 5 daqiiqo soo doontaa dambe hadaa taada hore ilowday taala adigu soo jawaabi doontaa waxa kale meesha yaala waxa weeye oo aynu ka hadlaynaa waxaan kala hadlayaa taariikh fog oo ku saabsan gobonnimo iyo calan tan maxaa farax ijaas soo hadal qaata Allah u naxariistay haliyay buu ahaa waxaad og tahay
ninkii 30 iyo dhowr dowladood oo ku soo duushay oo Maraykanka hogaaminayay ka adkaada weyn laakiin ayad quraan ayaa waxay leedahay ida jaa ajaluhum la yasquruna saa'ata wala yasdamuna anigu waxa ii daran haddaad tiraahdo maxamed farax eedida cabdiqaydid dilay iyo in adeerkii ku dhifto xabad iyo xabad baa ku dhacday marka ay tiraahdo anigu waa farxaya waxaan sanixi lahaa hadda ay dhihayd jalaal eedida si siyaad bara mashquul ku dhixita asoo qaxootiyo carray oo xabad ka carray haddaad dhihlayd cabdullaahi yuusuf oo xabad ka carray oo xamarawiye ka eryadeen oo Itoobiyaankiis dabada looga dhaco oo watay iyo gumaysiga keensaday ayaa asoo qaxootiyo jaraynayo oo da'daasa dal shisheeyo la Yaman ku dhintay asoo qaxootiya sariirtiisa korkeeda meedkiisa laga helay haddaa ay dhihlayd waa nixi lahaa haddaa say tiri jal maxamed farax eedida xabad baa ku dhacday oo caawa adoo daarada afkaada ka soo baxday oo tiri isagoo dagaalamayo dhintay aad iyo aad baa u faraxsana maxaa yeelay inaga waxa laga helaa taariikhda ragga iyagoo soo jeedo ay xabadda ku dhacdo laakiin anaga ragga qaxootiga noqda ee marka horena kibir qooqa iyo likaacada iyo kaliya tirisnimada iyo damaca waalan aan looga taaghayn markii xabadda ay bilaabataan dhabarka jeediye dhabar weynta ah nagalama helo kuba intay cabsadaan meengeliyo u dhinto dala shisheeye ayaga qaxootiya oo hodada mataliyana nagalama helo marka waxa weeye waxaan ku faraxsanahay arrintaas ciidda ka hashay waxaan kala hadlay haddaad garasho leedahay waxaan kala hadlay wax ku saabsan taariikhdaasi oo ah war aniga ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay Soomaaliya waa noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya waa noqday waxaan rabaa inay i sheegto adigu maxaad noqotay adigu caasimadda aad leedahay haddaad nin Soomaaliya tahay oo saameyn ku leh bulshadan ii sheeg muqdisho aad leedahay ma Hargeysa aad leedahay ma Burca aad leedahay ma jamhuuriyadda Djibouti baad leedahay meesha aad adigu saameyn ku leedahay ii sheeg tusaale kale ku soo qaadaya markaynu ka hadlayna hawiye waxa soo hadal qaada dhaqaale war adigu ma isgaarsiinta goolis baa leedahay ma telesom baa leedahay ma hormuud baa leedahay bangiyada ma salaama bangi baa leedahay ma dahabshiil baa leedahay ma Taj Express baa leedahay ganacsiga ugu weyn ee isgaarsiinta iyo bangiyada miyaad leedahay haddaba caasimad haysan walaalkayo haddaad hel magaalo ay ku nool yihiin 1 milyan qof oo daarada aad ii sheegi karin ya haddaad isgaarsiinta qaranka iyo bangiyada aad lahayn ya haddaad caasimada koowaad intii 23 lahayn ya haddaadan dawladaha xorta ah ee Soomaaliyeed sida Djibouti iyo Somaliland iyo Soomaaliya aad midna lahayn hoggaan mataqaana aad ku waxay waxa aniga aad caawintay ila soo fariistay ilmuhu kasto wax xisho darro weey hadhowna waa ogaa dooda markaan kula galo waxay dhihi doonaan nimanka ma jartay daahir wuxuu la doodayay nin warsingiliyaho saynta nooga yaala waxaasay meelaha u sheekay doonaan laakiin kaba saarayso nin abqariyaha tahay nin aftahanaha tahay ninka soo jeedo gobol laga dagaalama tahay way 2 daqiiqo dhiman marka waxaan ka rabaa inaad soo adkayso war aniga Cabdullaahi Ciise Maxamuud baan kugu hadlayaa xorriyadii baan keenay waxaad i sheegtaa nin daaroodo xorriyada keenay inuu gumayso u shaqeeyo mooyee waxaad i sheegtaa nin tagay oo inta ilbaxnimadiisa ay geysay qaramada midoobay ka hor qudbeeyay ee riskiga inta la eg dalka gumaysto ku jiro u bareeray waxaad i sheegtaa sababta ay ku dhacayso in markii laga soo xornimada la soo qaatay ra'iisul wasaarihii dawladda daaqiliga laga dhigo Cabdullaahi Ciise Maxamuud caasimadda ee Muqdisho ahayd adigu xageed joogtay aaway caasimadaadii aaway maxay xil ku qaban weyse maxaa haddana keenay madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya historyga inuu hawiye noqday iga jawaab su'aalaha su'aadda ugu sii celiya caasimadda daarad leeyihiin 1 milyan ku nool qof 4 milyan haysta aniga caasimad ah ay ku nool yihiin maxay caasimad caasimado dalka leeyahay ilaha uu lahaan jiray hadda ma ahe Burco iyo Hargeysa iyo Muqdisho kee daarad leeyahay iga soo jawaab waxay soo joogtaa iyo daarad u matalay qaramada marka la tagay ee la soo qaaday gobonimada Soomaaliya yaa ku jooga adiga hebel baa i jooga shacabka ku dhageystaanay hadda waxaad ka jawaabi karin markaasi ma wada murmi karaan weligeed ma wada daaqi jirin dayre iyo cawle ya dawacaduna loo ogdishay dawareegtaa la yiri ka soo jawaab daayir waa noo dhammaaday daayir 5 daqiiqo qaad kulley balanta waxay ahayd 10 in lagu kala baxo iyo 5 laakiin shiinow dhowr su'aal ayuu daahir ku weydiiyey taa ay dhalinaysa in 5 daqiiqo oo extra ah ku darno wareegiinii afaraadna markaan qiimeynay weli waxaa hogaaminaya shiine oo markii afaraad 320 wata
laakiin wareegan ugu dambeeya qofkii natiijo bata dhanka kooniska ayaa natiijada ugu dambaysa helaya. laakiin doodda hal saac ay soconaysay heshiiska soo waayo heshiiska doodda hal saac ay soconaysa ma dhowa. Okay, shiina qabsa marka may balantu waxay ahayd 10 iyo 5 iyo 5. marka hore waxaan ku heshiinay adaan fahmin marka hore waxaan ku fahanay 10 aan ku furaynaa kadibna waxay ku socon doontaa doodda 5 iyo 5 oo hal saac saasay ahayd balanta adaan fahmin oo markii hore waxay ahayd 10 iyo 5 iyo 5 wareegii kood waa dhamaaday. Okay, daahir horta wuxuu yidhi su-aasha uu weydiiyey markaa uga jawaabo muqdisho 4 milyan baa ku nool daahir oo 4 Soomaali weeye inaad taa ka tagto ma habboona. raxaweyn inta ka joogta iyo inta hawiye ka joogta waxa laga yaabaa inay isla eg yihiin afkana waxa ka maqlaayay dhowr jeer adoo leh caasimad weeye caasimad macnaheedu inaa fahantaa muhiim ah waa meel Soomaali ka dhaxaysa weeye daarood inta ka joogta maanta adigana kuma tirsana anna ima tirsana hawiye inta ka joogta adigana kuma tirsana anna ima tirsana marka caasimad Soomaaliyeed weeye Soomaali oo dhan baa joogta safaarada jooga ajnabi baa jooga hargeysa sidaas la mid caasimada Somaliland weeye Somaliland siba isu xijinaysa laakiin waxaan ku sheegayaa Somaliland anigu majority baan ka ahay Somaliland ninkii xornimadeeda keenay baan ahay waxa lahayd waxa nin baa ka hadlaysay Cabdullaahi Ciise waa nin Soomaaliyeed buu ahaa Ingiriiska cid baa tiriya u adeegtay markaa leedahay oo la shaqeynaysa gumeysti Cabdullaahi Ciise dowladda Soomaaliyeed oo xor uma shaqeynayeen Talyaani u shaqeynayay waa inaad taa fahantaa muhiima daakhiliyada lagu sheegaya waa gumeysti waa administrative hoose oo Talyaaniga hoostiga ahaa haddii cid la shaqeynaysa markii isaga la shaqeynayay 13 nin oo SYL sagaal ka mid ah daarood baa ahayd maskaxda ku dhalatayna Cismaan Keenadiid baa Keenadiid waa garanaysaa hore ugu socon meeno waa ninka garanaysid ninka ku rafatay oo Jaale Maxamed Siyaad Barre Jaale Maxamed Siyaad Barre inuu ku dhintay Nigeria waa ognahay sidoo u dhintay inuu macaan lahaa waa ognahay meel ku dhintayna aad u garan maysid hana ku dambaabin nin wadanka xoog ku qabsaday buu ahaa xoogii baana looga saaray waa caadi weligeeda ka dhacdaa عيديد باكسون قلت حبض باكو دعدي حبض باكو دعدي حبض ما يسوي إثيوبيا لا دري مسوي مريكان لا دري كو دعدي كما دعين سوي إسبارة تاجن وعثمان عتاء سيستان حبض ساس كو دعدي إسبارة وأنا أنا بحال كيسان في عن موقع إسبارة تاجنا إسبارة في الذي متجوجين يا كوسو هالجموع حرمة كوكا أنا بحتري ورسيد كواهيو عم تقول أول شيء تأركاي سيد كما شيء إنسان سيد محمد عبد الله حسن نكى تريا إنجليزكو مركو كدقي مركو وحكة الأوعي وكدقي ديار داوي وأفريقيا تاريخ رسالة وقلي وأي سيدكو عبد الله عيسو حكم داخلي وتريا مش غيني أنت على سؤال دسو سيد محمد عبد الله حسن بقرطوية إنجليزكو حكو بردي مركو كوفي كدلي ورسيدو سيدا بقران عربتا ودرك عن كوقبتي هايسو oo aalad daaroodiya sida aalad sacuudaan sacuudiga ugu sameeyay oo reer aalad nahyaan aan imaaraadka ugu sameeyay aalad daaroodiya ah ku sameeyo kirbu yiri Soomaali waa sinaanaysa maalintii haduu yeeri lahaa dhamanka iga dhulka lahayd sida carabtu isu salaamto ama halka oo kale iga salaami lahayd ya wadankan sidaa baa ku saari lahaa laakiin Soomaali inay wax tahay oo mid tahay baa anoo ku qaracsanahay Somaliland ba isku dhadajinaysa Somaliland hawi xagee ka tigaa marra waxa ku hadlaysaa waxa ku hadlaysaa marna waxa ku hadlaysaa marna irir Soomaali iyo aadaysa hadba cid kala sheeganaysaa raxweyn taariikhda ma sheegto isaaq taariikhda ma sheegto anu tan daarada iga badan ma soo koobi karo daarad hadda waa canaanaya sababtoo ah taariikhdii maxaa waa kala ilowday dama xafidi karo waa buwaag waa wixii iskuulka lagu dhigay jiray weeye anu ma xafidi karo wax badan weeye taariikhdana waa leedahay adaa ila leh ina ku faanto weeye sayidka marka Belgium ka joogto dad kala hadlaysid waa ina u sheegto tira badni hadii laga hadlo waxa sheegaysay dahabshiil baa jira kana jira dahabshiil in saaqo weeye waa in allo xisiyay hebel kala jira yaa leedahay tiri walasjee baan leeyahay SJ ila maalintii halka la furay intee milyan oo dollar bay diday dahabshiil ma diri karaa golista xawaaladaha sheegaysa ma diri karaa ma diri karaa adeeg ku siineysay hawiyo dhanba soo quudisay annaga na siinaysaa ina umhad celisay daadan bisadahayn iyadaan leeyahay SJ baan leeyahay
dahabshiil wax kuu soo diro waa kaas jimcadaasigas wax kuu soo diro miyuu kula joogaa waa maya ma bixin karaa intaa ma bixin karaa bixin karto ma bixin karo ya ma bixin karo waa inaa maaragtay saa ogaatid weeye waxaa leedahay kanaan leeyahay aabbahay baa guri lahaa anaa dameer laa dhaanta maamaayeyni weye war farmaajo waayo xagee ka talin jirta muqdishodaa sheegayso ninka ku doobinaya maanta waayo farmaajo waayo ma sheeganaysaa haddaa sheeganayso dee soomaali wax kaa oranaysa farmaajo waayo aniga ra-iisul wasaareyaasheedii intaa oo ra-iisul wasaaraa leeyahay cumar cabdirashiid shalay markuu ra-iisul wasaare ahaa oo xasan sheekh madaxweyne ahaa waa la tartamayay kursigu ku qabsanayay cabdiweli gaas sheekh shariif waa la tartamayay kursigu ku qabsanayay rag hal bay ahaayeen probleme 8 milyan buu kusoo ururay markuu hadlaya anigu tartami maayo buu la soo istaagaa anigu tartami maayo walaalayaal soo dhawaad anigu tartami maayo markay maba aaminsan kursiga kale inuu geeyo laakiin ra-iisul wasaarayaasha waa tartami jireen waa ka kugu dhacay shantaadii daqiiqana waa dhammaysatay daayirna waa ku maqlaa anaga xawo waxaan u leenahay in qof walbo soomaaliyeed ama qof walbo daarood iyo hawiyo matalaya in aan si qurux badan usoo dhoweyno shiinow si qurux badana u hadashay daayirna meega waa qabsanaan laakiin waxaan jeclahay mar walbana inay natiijada iyo aftahannimada isla socoto siduu daahir u hadlayo quruxda badneed iyo siduu koonis u helay iyo siduu shiina u hadlaya asagana koonis u helay intaba waan sheegaynaa anagoo cidna u eexanaynin daahir waa saaxiibkeyga shiinana waa saaxiibkeyga marka intaanan daahir meega uusan qabsanin aanan ku soo dhoweynin natiijada markii shanaad waxaa hoggaanka wada shiina oo wata 492 coins iyo daahir oo aanan wax saa ka fogeyn asagana haysta 106 coins daahir meega ku soo dhawaaw 5 daqiiqo waayahay shiina waxaad u malaysaa inuu hadba madaxa geedaha mataqaana la gelayo shiina waxaa u malaysaa inuusan lahayn legacy oo iga sheekeeyo oo taariikh gobonimo doon ah shiina wuxuu yidhi maxamed siyaad barre ma ogida ha ku dambaabin laakiin wuxuu leeyahay jaana ciidiid baa isbaaraha soo taagan ku dhintay siduu asaga joogay oo kale horta ciidiid baa isbaaraha soo taagan xabad ku dhacdo waxay lamid tahay wixii ay lihi jireen tolkaaga ciidiid baa laftiisana soo kufsaday oo isku dhiibi jireen qaxootiyada ay lamid tahay shiinow haddaad doo taqaano magaalo soomaaliyeed way tahay muqdisho laakiin waa magaalo hawiye su'aalihii aan ku weydiiyey hal xaba igamaad jawaabin oo ahayd war may leeyihiin daarood baan ku weydiiyey magaalo ay ku nool yihiin hawiye ha joogo madaxweyne ha joogto daarood may leeyihiin magaalo ay ku nool yihiin 1 milyan oo qof oo ku taalla dhulka xorta Soomaaliyeed waa ka jawaabi weyse waxaan ku weydiiyey su'aalo badan oo ah daaroodku may leeyihiin bangiyo iyo isgaarsiin daaroodku may leeyihiin caasimadii hore ee dalka iyo caasimadaha maanta hal magaalo ah jawaab bay u baahanta waxaa kaloon ku weydiinayaa noloshantii dalka faa'iidsanayo maxaa daaroodku qasbaya taariikhdooda inuu noqdo kursigaan ku dhegay kama degayo halka maray qabtaan mase ii diidantahay libinta ku saabsan cabdullaahi ciise inuu xorriyad kursi uga degay aada caddi inuu xorriyad kursi uga degay cabdiqaasim kursiga inuu xorriyad uga degay shariif sheekh axmed kursiga inuu xorriyad uga degay ilaahay kuma saba diidaya xasan sheekh kursiga xorriyad uga degay laakiin aad ku disheen cabdishiid cali sharmaarka kursiga aad ku disheen maxamed siyaad barre laga fuji waayey qaxooti ku dhintay xoog looga saaray cabdullaahi yuusuf etoobiya gumay soo watay xoog looga saaray qaxooti ku dhintay farmaajona maanta laga fuji la'ya waxaase walaalow miyaad ceeb u aqooni waad iga soo jawaabi doontaa maxay kuba hawiye markasta kursiga uga degaan oo gobonnimo iyo dimuqraadiyadda ay u raacaan kuwa daaroodna maxay isugu dhejiyaan oo kursiga looga deji la'ya waa su'aal inaad iga soo jawaabto oo shacabka ka qanacsan aad doonayaa geedaha madaxa ku garaacin intaasoo su'aalood ayaa hor yaalla ragga ugu caansan Soomaaliya ragga gobonnimo doonka ah ragga dimuqraadiyadda u shaqeeya caasimadaha dalka waxoo dhanba maxay hawiye u leeyihiin Ethiopian bay la dagaaleen Maraykan bay la dagaaleen huwantiisii ya way defeat gareeyeen ma ii sheegi kartaa gobonnimada oo u dagaalama nin daarooda
ma ii sheegi kartaa sababta ragga daaroodka madaxweynayaasha soo mara ay kursiga ugu dhegan yihiin oo keligitis yihiin oo loogu dilo ama qaxooti looga dhigo ya ma ii sheegi kartaa ma ii sheegi kartaa hawiyaha kursiga inta ku dhigay lagula dagaalay ee xabad looga dejiyey hadalkaba anoo 5 daqiiqo gaarin ayaan kuu soo koobayaa bal intaad analyze garayso ya su'aalahayga si dhaba u diris aniga kuma dhihin raxweyn baa degan caasimadda iyo daarood baa degan lamaha waxaan ka hadlayaa magaalo daarood leeyahay oo ay 1 milyan oo qof ku nooshahay shiina ma jirta waxa weeye su'aashaadu haa waa magaalo hebel maya ma jirto haddayse jiraan haddaba 4 milyan magaalo ay ku nooshaha dad Soomaaliyeed ay hawiye leeyihiin waana Muqdisho taas waxay ku muujinaysaa inaan ahay ninka adiga markasta kaaga horeeyo Soomaalinimada ninka ugu timid Soomaali sida aad sheegtana hadalkaaga ku jirta inaad jabarti tahay oo Carab tahay oo Soomaali ahay adiga afkaaga nooga sheegay marka nin qaxootiga hata mid ku saabsan duubirad dileed ayaa dhashay daarood anigu fikirkaas ma qabo taariikhna kuma hayo waxaan qabaa daaroodkaani in gabar shaqaalaha oo meesha si ku guursadeen qolada ahaydna aan la ogeyn inay sidaasna ay mataqaanaa hadda iska sheegtaa duubirad dileed naag la yiraahdo taariikhda kuma hayo su'aalaha iga jawaab muxuu dadka madaxda ah ay kursi ugu dhigaan maxay ku hawiyaha dimuqraadi u yihiin caasimad ma leedahay magaalo ay ku nool yahay 1 milyan daarood ma leeyahay bangi iyo isgaarsiin ma leedahay waxa soo dhacdo iska indhatirin adoo ismaqiiqid adoo isjeeyniina wuxuu yamaaqan ku mashquulin anuniina wuxuu yamaaqan akoonkan waxa la igu sheegaa akoon ay daarood lacag ku aruursadaan oo la yiri hawiyaha nogala celiyo sababtoo ah inta arkay anigu waa arkaysi inta qof hawiye ah ee caaw ii soo diraya giftiga ya oo akoonadooda iga soo diray laakiin waxa arkaa adigu hal qof oo ama niina wuxuu ahaada ma ogi astay la yiraahdo oo wax ku soo dirayo oo la soo ballamay oo lacag lagu soo shubay laakiin ani waxa arkaysaa anoo cidna balansan dadka siday wax igu soo dirayaan ayaad u jeedaa dooda hore u gal waa ka bax daayri shiine waxaa idinka codsan lahaa taariikhdiina out of topic ha noqoto yani dadka meeshan ka maqan taariikhdiina ha ku koobnaato daayir waa mahadsan tahay si qurux badana u hadashay si sharaf leh intaanan meega u dhiibin shiine waxaan aad ugu mahad celinayaa dhalinyarta sharaftay qolkan oo giftiyada ii soo dirtay sharaf iyo karaama idin leeyahay taa markaan ka gudbo daayir si qurux badana u hadashay si sharaf leh u hadashay waxaan jeclaan lahaa markaana shiine inaan u dhiibo maadaama daayir uu waqtigiisii ku dhammaystay su'aaluhu qabay iyo doodiisa wareegeeni 6aad waxaa aad baa laiskugu dhow yahay koonis aan weli waxaa badan shiina oo haysta 529 iyo daahir oo in yar u jira asagana haysta 423 daahir aad u mahadsan tahay shiine waxaa noo bilowday 10 daqiiqo halkii saacaan soo gabagabaynaynaa shiino waxaad haystaa 10 daqiiqo waa markii shashada daqiiqaan ku wadaynaa maadaama ay daahir shiina intaba iga codsadeen ay isku raaceen shiinow daahir su'aalo badan uu ku weydiiyey waxaan jeclaan lahaa 5 daqiiqa 3 daqiiqa ugu horeysa inaad su'aalihiisa ugu jawaabtid wixii markaa fikri aa qabtidna aad sii wadid ku socda shiin waayahay horta daahir kursi la isku dhajiyo buu aad uga hadlay horta daahirow kursiga horta asalkiisa wala isma amahayo waa inaad taa ogaadid kursigu tartan hawlu ku xiran yahay markaan ka hadalno dowladnimada iyo cid kursi isku laysa iyo waxa aan ka hadalno dowlad Soomaaliyeed Maxamed Siyaad Barre Muqdisho waa ka tagay USC buu uga tagay dalka iyaga qabsaday jaartarka midowga Afrika wuxuu dhigayaa ciddii caasimadda markaa jabhadda haysata inay iyadu dowladda soo dhisto oo adduunyadu soo aqoonsato dowladda inay soo dhistaan baa idinka sugayay عايديد قرله على قرله بكسو قبقبيسين إذن تاريخ حما هالكا إذن كرنا علي سومالينا دباتها إلى إيمانتا أي كبان على هاي باقارسيسين هذا مالنت الدولة درسي لهاي أو كوهشين لهاي أو علي إيو نيكال اللي لبدي المعاديرتها أو إسليني الله أنحرست الله مرحموي ميد أوران لهاي فريسو ميدو أدنا مدحوين النقو وردالكو سيدا أمانتي هاي ما أهالين أدنا قحوتي ما أهاتين أنا قحوتي ما أهالين
ruwaando kale ahaan lahayn laakiin caqliga ku siin waayay waa inaad taa ogaatid caydiid garle cali garle ha ilaawi daarood meel isku haysta arki maysid waxaa arkaya daaya adoo le daarood ma mateli kartid daarood kala gurin anu daaroodnima ku kula ciyaaray baa meesha ku joogaa daarood baan hay daarood suudaankiisaan hay dadka inaad kala barato baa aad u fiican farmaajo doorashadii buu qaban waayay baa tiri horta xasan sheekh maxamuud iyo waxa ka horreeyay sheekh shariif labadaba muddadu waa ku dheeraato waddanku waa waddanka iska burbursan doorashadu waa dheeraataa ra'iisul wasaaraha doorashada qabta farmaajo doorashadii wuxuu ku wareejiyey adeerka rooble ku wareejiyey rooble halkii sanaadiiqda waddanka inuu dhigo oo doorashada qabto ay ahayd maalinna waa kaa usii ordaya uhuru kenyatta mucuusta u xiraya maalinna waa kaas imaaraadka u ordaya oo yaa loo xisiye leh oo 8 milyan 9 milyan ka lusha xasan sheekh doorasho ma qabanay ra'iisul wasaarihiisa cumar cabdirashiid baa qabtay hadda firin ra'iisul wasaare xukuumad baa wax qabataa waa inaad taa ogaatid sheekh shariifna ma qaban ra'iisul wasaarihiisa cabduul gaas baa qabanayay oo road mapki jeexay oo waddanka ka saaray muddadii ku meel gaarka ahayd haddii cidi doorasho la kufto qaban weyda adeerka baa la kufay waa inaad taa ina isaga ku canaanato weeye farmaajo inaad ku canaanato ma ummadda oo dhan hortaagan farmaajo mas-uuliyadda doorashada wareejiyey ra'iisul wasaarahana shaqooyinka laga rabaa maaragtay inuu qabto hanti baa ka hadlaysaa war meel fog ku aadi maayo war dhafoor buu ku yaalaa mar walba halka anaa kaaga adkaanaya 450 kun amaraysaa 600 kun sii soconnaa bankiyada waxa kana leedahay sheegayso haddaan halka lagu soo diri karaynin war ma aakhire boostinada kaaga gadaya haddaa qalbi dhagax baa xustay oo waxa tiri ogaadeen baa la dhiibay adoo raba inaad daarood isku dirto qalbi dhagax garow lagama soo qaban kismaayo lagama soo qaban qalbi dhagax gaalkacaya laga qabtay gabar habar gidira oo xaaskiisa oo meesha degan buu guriga u jiifay galmudug baa qabatay farmaajo ciidan uguma dirin awoodana ma hayn gaalkacayo idinkaa soo qabtay oo baydhabo geeyo xabashidii halkaa joogtay u geeyey farmaajo waa kula gargarateen macaabud waaq baa laga soo qabtay ma farmaajo ciidan u soo diray waa maya waa inaad taa ogaatid magaalo milyan ku nool yahay aad tiri war waxaan ku iri tira maba ku wada hadli karaba soomaali galbeed waa 14 milyan 12 baa ogaadeena 2 milyan oo soo hartay milyan waa daarood milyan kale tan waa soomaalida kale boosaaso milyan baa ku nool puntland taa arkayso 4 milyan iyo 500 kun baa ku nool daarood oo dhan ma wada deganaan jubbaland intaa in la eg baa ku nool galmudug intee ku nool هيجد على أوي وأنا تأوي تدوي ما هنا ما مقولة ذا لا ولا ما مقولة بقى هذا هذا إذا علاك قيل يعني ركع أوله مقدش عدد كي نجود عادي لكن كوكن وعمرين سؤال أي ودي سمج على إنا سؤال كويديو سؤال يرى كويديني هذا ما نقول بقى فيديو دوبية أضو دارو هذا كعاي أكو ركع أوله مركي أركتو قف خنيسة قبل كيف وصل عيا هذا دارو ولا جيرا ظاهره خنيس سومالي مركه مقشو اورتا في العلم حلال با مسو حاران شيء يسحن با ودادي خنيس انا افك كسو قادنو ومال walba كسو قادaba laga qurux badan yahay laakiin hadaa ku soo qaado su'aasha ku weydiinaya khaniis hadii la maqlo icon qofka Soomaaliga ah fuad blue makeup samsam in adeerka soo xasuusanaya aniga ala ay baray Soomaali aanu dhinacaan u qaado la ala ay baray oo yiri gudoomiyihii habar gidirtu dooratay ba adeer u ah isagoo kaaga cabanay oo waa ifadaxayaan maqlay waa icon waa ka xunay wiil Soomaaliyeed in ka wada halaabay weeye haweena dabada dhiiba ma oran laakiin hadee waa ayaan dara dhacday weeye waa idin kala murugaysanay waa ayo ninkaasi war ma daaro ba misoo in adeerka su'aashaas waa ku weydiinaya halgan baa ka hadlaysa hebel baa halgabay sayidka waa dhaafaysa sayidka ama qir ama wuxuu ahaa hawiyu ahaade oo sidii Axmed Guri u sheegay sheego waa ka aamusaya adiga dhaafay markasta daarooda kala guraysid jooji aniga hawiyu ku kala guri maayo hawiyu intuu isu geystana daarooda suma geysto waa isu gol yahay ismuu leeyahay kala dhex gala inta oo boqor baan ku soo tirinaya ugaas maxaa ku yiraahday Suudaan garaad oo halka marka fadhiga looga wada kacayo oo aan hadal ka daba oran dad dhaqan kale oo ku dhisan baan laakiin aad uma haystid hoggaanka dhaqanka oo ku kala celin kara ma haystid adiga waa ayaan darada keentay ina maartay halka isku baabiisaan aydid ba
maraykan la diriray maraykanka godobtaa oo haysanaa dad masaakiin oo yaacayo xabad nagaga furay ya waa world power waaye super power waaye beenta ha isku qanin 18 askari meesha kaga dhintay 7 kun oo qof ayna ka dhimatay ka badan waa ka baxay قرح كل وقت شكله ولا ما يستيقظ خدمات شينو سقرح بدنا أو هذا الشيء في كرامة مركان وحن قد بيا ولا كي قدار السجن سيدو كلام شرف واي ضدنا سفي عن الصعصة كل وحواي أفتح النمو إيو روح والبحكمة يبي وهركن كانوا مرخاتيو أيوة وح مغلق إنه وحركين لا يتو قد با إنتان كوبين